السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابنا داونيسا جماعة official media sidoo kale Kaafi Media Production. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابنا داونيسا أنا مرتاح أسكن هاي حسن كافي oo aan rabay inaan wareysto su'aalo yar oo aan wiil yar daayar oo saxafina kana howlgala cadaha maxalliga ka shaqeeya wajiga dadaab sidoo kale telefishinka caalamiga ee biyad badacas 24 ama BC24 TV marka waxaan rabaa inaan wareysto Xasan waxa ay sheegtaa marka hore goorta ay kugu dhalatay inaad noqotid saxafi maahan waxaan wax hibid Allah uu siiyay waxa markaan arkay in baahi loo qabo ama bulshada ay baahi badan ay qabaan oo halkan aan ku noolnahay waa xariiq qaxooti san warbaahinta ay ku yar tahay warbaahin badan ay joogin ama kale warad badan ay joogin ay ugu qasabtay yaraankeedana waxaan jeclaa inaan mar on television ka soo muuqdo ama idaacad ka soo muuqdo ama dad ay dhageystaan ama codkiga bulshada ugu shaqeeyo waxay ahayd tan markaan yaraa laakiin waxay soo rogashay 2016 inaan galaas galo aan barto isla 2017 aan shaqo bilaabo ilaa hadana shaqadii aan ku jiraa Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ugu mahadcelinaa mid ayada kadib waxaan u mahadcelinaa waalidiinteedii sidoo kale macallimiinteedii isoo wax bareen iyaguna taageereen mar on television ka soo muuqdo waxa caqabad dadka ku noqota ruux wax uu bartaa arday marka arday aatiin meel wada wax ka wada baranaysan noqo kuwa saxaafada barta ama kuwa cilmiga gaarka barta waxa caqabad dadka ku noqota ruux markuu wax barto inuu wajaha ama uu toos u raadsado meelaha uu ka shaqeyn lahaa taasoo cabsi badan jirkiisa galaysa adiga goorma marka ay ama say kugu sarta gashay in tagtid idaacad ama TV say kurtu kugu jumcaalo waad maaqsan tahay waa su'aal aad muhiim u ah horta marka galaas lagu wajiro boqolkiiba galaaska asaga boqolkiiba 10 ama 5 ama 3 laga yaabaa in ay wixii ay niyo u hayaan ama doonayaan inay ku shaqeystaan ama bulshada ugu shaqeeyaan tusaale kale hadda marka galaas furtid galaaskaas waxa iimaanaysa 100 qof oo kala duwan oo kala wiji oo wixii aan garanay laakiin Soomaaliyeed yihiin inay wax bartaan ay jecel yihiin boqolka marka soo wax bartid soo wax saartid xitaa qalabkii waxa laga yaabaa inay dib u sii iibiyaan tusaale aan ku soo qaatay iskuulka yeb marka laga soo tago 2019 kan ku jirna marka laga soo tago aan soo laga soo tago sanadii ka horeeyay waxay bixin jireen xirfado kala duwan xirfadihii marka boqolkiiba 10 waxa laga yaabaa qalabka inay ku shaqeystaan in 9kii ay suuq geeyaan tusaale ku siiyo hadda marka la siiyo computer oo kale ama la siiyo kamerada oo kale ama la siiyo foosirkada codqaad la siiyo waxay ku soo celinayaan magaalada Keenan waxay leeyihiin ayaga group waxa loo siinayo group waxa loo siinayo groupka 4 qof ama 5 qof waxay rabaan inay ku shaqeystaan ayaa loo siinayo 5 qof marka isma keenaa isma fahmayaan waxa la yaabaa 5 qof hal qof inuu rabo shay inuu ugu shaqeeyo afaskan isku raacaan in la gado marka waxa la fiirna meesha loo badan danta xuquuqda inay shay ay gadaan ee lacagta ay isticmaalaan xirfadina way wataan shahaadadii way wataan way kuma shaqeynayaan marka waxa danta ugu qasabtay dadkii markay ay rabeen inay xirfada aysan ku shaqeysan aniga dhowr dhibay aan qaraacay ilbaa qaar waxa lagu dhahay hadda fursad naga beenano ama hadda meesha wax ugu baahan laakiin markaan saa xirfada aan kala qaaday xirfad aan bogay dad waxa jiraan social media aan saaxiibo ku nabrahay bulshada yareedan hadda Mustafa Samaka hadda wuxuu joogaa Hargeysa yarkaas aad u mahadcelinaa asaga ugu taageeray inaan television ka soo muuqdo television ka ku soo muuqdo wuxuu ahaa television ahaan Africa Cable TV oo marka dambe loo bedelay City Cable TV oo hadda waxa laga leeyahay xafiiska Jowhar inaan taqaano magaca Cabshukuur Shaashaaniya ahaan ayaa iskala television waa YouTube waa idaacad local waxa wali asana ilaa ay dhahan City FM Jowhar Cabshukuur Shaashaan muddo ku dhawaad 9 bilood muddo ku dhawaad 12 bilood wuxuu joogay magaalada Muqdisho maalin ka hor ayuu ku degay magaalada Jowhar waxay qalaaf asig iyo maamulka isfahmi waayeen oo nafsidiisa kala soo cararay idaacadiisa xitaa muddo ay haystay maamulka Hirshabelle oo ay hogaaminayay Maxamed Abdiwaare ay gacanta ku haysteen ugu dambeyntii qalabkiisa waa loo celiyay waxa la siiyay ninkii waxa loo dhiyay ninkii madaxweyne ku-xigeenka Cali Guudlaabe asagana hadda inuu kala wareego ma ogi laakiin asaga gacanta ku hayay taasoo laakiin dadaal badan juhdi badan oo aan geliyay baashayda marka taas ay u suur gashay ma xasuustaa marka ugu horeysay idaacadda soo fariista ama soo fariisatid maxaa la jiray radio soo fariisatid waxyaalaha aad dareentay way jiraan idaacaddii ugu horeysay aan fariisto ama barnaamij aan ka tawiyo ama war aan ka tawiyo waxay ahayd idaacadda Wajar FM oo waa markii ugu horeysay war aan tawiyo ay ahayd sidoo kale weligeed television ma aan tagin meel uu ku yeelana ma aan arkin laakiin idaacadda ayada waan arkay studio waan fariistay xitaa waxaan gaaray barnaamij inta aan gacanteeda ku furto aan ku soo xiro
marka taasi waxay la mid tahay marka juhdigii iyo dadaaladii faraha badan aan geliyey ayay ka mid tahay waana guule ka mid ah hadafkii qof walba bani aadam hadaf buu leeyahay guul buu gaaraa marka guulahayga ayay ka mid ahayd inta barnaamijka ku dhex jirtay ama barnaamijkan ku dhex jirtay caqabadaha aad la kulantay maxaa ka mid ah caqabadii ugu horreysay maalmaha ugu horreysay oo lagu dhahay waxaan u baahanahay warbixin noo soo diyaari tusaale kale intaan ka baxay waxaan aaday Darfur waxay ka jirtay bilaan Darfur waxay jirtaa wax ka yar 5 kilomitir Darfur aan aaday qolaan warbixin ka soo duway subax adii maalin xiloo aan iska dawrey hasan iska dawrey انت كمبيوتر ورادي انت كان ورادي حتى لكن وحاجه الحمد لله الى سبحانه وتعالى ويفذي حتى حلقه هل ساعه wax ka yar inaan warkay inta hagaajiso aan isku dabarido aan dira hal saac wax ka yar marka ruuxeeda hal maalin bay u wada qaatay saan inta wax raadi ilaa markii uu cusbad dad haysan qof ku garab istaagna waxba kuma hagaagayaan ugu dambeyntii laakiin wixii aan ku guuleystay alxamdulillah dadka wareysada ka qaada inta badan ma ku aaminaan oo ma ku dhahan wariyay sax ma tahay oo seen kuuga aamin kana warbixintaan aan kugu dhiiban karnaa waxa aqoonsi ay ku garan karaan ama say inta badan kuuga aaminaan waayidii hore way jirjirsan laakiin hadda alxamdulillah dadkii xeer waxaan gaarsiiyay ayaga isoo wacdaan tusaale kale hadda bishan aan ku jirno waa bil mawlid culimada ayaga soo waceen waxay ku dhahayn waxaan rabnaa mawlid baan ku wada jirnaa bishan ayada taariikh bilaay maalin bilaay intaad naga duubtid warbaahinta aad u dirtaan rabnaa marka waxaan ku dhahay wal hayi waayo markii horena cid aaminaysa ma jirjirinba hadda laakiin xeer waxaan gaarsiiyay ayaga isoo wacdaan dadka ayaga tusaale kale waxaa jirtay maalin dhaxaas waxaa jirtay maama xanuunsaneed oo luqtada aad ka naxaysid tabarcada wala soomaamadi lacag ba waxaan soo dhaday baraha bulshada telefishinka waa la sitay maamadii lacag baa loo aruuriyay alxamdulillah falcelin noocay bulshada kala koonta markii warbixinada qaar xasaasi ah soo dirtid ama warbixinada si kale ah ama mar waxa jirta dagaal iska dhici kara mar waxa jirta khilaaf dhici kara kufsi dhaca warbixinada nooca marka soo dirtid falcelinta bulshada kala koonta maxaa kamid ah anaga horta waxaan joognaa xiriiq qaxooti inta badan warbixinada dagaalada iyo warbixinada aan caadi ahayn juhdi ma galino maxaa yeelay meeshan joogno meel iska xiriiq qaxooti ah 90% waa safe waa nabadgelyada amaankeedu waa iska caadi laakiin waxa jira meel qaar tusaale kale script marka qorayso meel waxa jira script uu ka qaldamayo baash marka si dasid dad baa kula soo xiriyaan waxay ku leeyihiin meelada ka qalada hadda kadibna hasameen markaas waxay la mid dhiirigelin dadkii ku soo aflagaadeeyo ama ku soo caayo qofka naartu nacib kuma qaba waa nacib ma waxa saga because of lagu amaan karaa waa lagu caayan karaa marka waxa loo baahan dulqaad inaad samaysid qofkii asagana aad dulqaadato haduu wax ku dhaha waraa meesha wax ka qaldan qofkaas kuma nacan xumaan kama ahan waa qof wanaagsan oo horumarkaada jecel marka waxa lagu dhahaa waad maadsan tahay وإن شاء الله تعالى وربحنا تمنا وحسن وحنا كبدلية حصل لها إن شاء الله. وحاجرة دت فربضن أو شغلاني أو دنيا ردادة أو لقي بين سوق كلاس هذا مسوق حافظ دقيقتين أما جالس للجوكتان نرتاح سوق المحكو بورين. هرتاني جلاس كان وحوها بنقول نهتنا قلدنا صدق يوح لو تكون لحظة ممكن صحافة برنيني. هذا وحاش شقيان أو ريح لي جوجان وهذا شقيان هو هنيجا كو iyo wajeer oo hal qof ka shaqeeyo oo wakiil waraadka warbaahinta istaa iyo Nairobi oo asna ka shaqeeyo wakiil waraadka warbaahinta istaa asna sidoo kale hadda saddex qof aan xasuusta waa 70 iyo wax dhowr qof oo ardayga la soo barinay waxa danta ku qasabtaa saddexdana qof inaan shaqeyno oo maanta aan nahay rag oo warbaahinta ku dhex jiro oo la yaqaano wixii naga soo horiyay marka laga soo tago anaga groupkeena 30 wax buu ahaa saddex qof aan ka shaqeysan marka waxay meel la mid tahay dadaalkii iyo juhdiga faraha badan aan gelinay Cabdiraxmaan hadda aniga waan iska soo shaqeynay idaacad ku tar wajeer barnaamij waa isla galnay dhar mar guriis ugu martay qaaday marka taas waxay la mid tahay juhdi in qof uu galiyo qofka Cabdijaliil waa asna qof furan oo dabeecad wanaagsan hadda wuxuu joogaa Nairobi joogaa madax barnaamijyada warbaahinta wuxuu ka mid yahay STN oo madax barnaamijyada dhan suuqalaatan ahayn marka aniga dhibka jir wuxuu yahay sharci laanta sharcidan haysan lahayn ama sharci aan haysan lahaa meeshan kulmu joog lahayn barnaamijkan warasanaga ma qaadi lahayn waxaan ku weydiinayaa waxa jira caqabado far badan oo ruux wariya xurmaan inta badan markii la fiiriyo waxa laga yaabaa in warbixin meel u doonatay meesha warbixinta ka jirnay baabka laga soo xirtay ugu dhahay warbixintan cidna ma ogelina waa jirayd oo xiran ama waa warbaahin baabada loo xiro waay taasoo kale markay ku qabsato idaacadan ay ka soo warbixin oo hordhacan ah bixisay oo ay tahay warbixintaas soo gudbisay taasoo kale maxaa ku fardanaysaa sabab kale waxaa jirtay 2019 markaan soo dhaafin shir waxaa jiray UNHCR ay shiraysay oo UN ka dhaxlay xaradii waana imaad leefkan soo qaraacay yar baa joogay oo waardiyaha
marka wuxuu dhahay maxay ahaydeen waryeel baan nahay marka aniga iyo yarab qofka la soconay marka wuxuu dhahay qof aan u soo yeeri oo UN ka socdo meesha uu xafiis ku tagay laba qof oo soo ka xigeen marka wuxuu dhahay shirkan waa shir iska caadi dhici jiray marka midda loo baahno midda marabno marka waxaan ku dhahay bal hay waaye marka taasoo kala dhacdo waxaan raadinaa dadkii meesha goobjoog ku ahaa tusaale kale xarada maamul bay leedahay hadii anaga naloo diiday oo ilbaaba u xirna maamulka marka shirka soo baxaan baan xogta ka qaadana ama hadii ayna ogolaado muuqaalna ka duwana ama codaan ka duwana ayaga ka qaadana xogtii sidaan u dirnaa warbaahinta u dirnaa waxaa jira shuruucyo u degan saxaafadda marmar qaar waxaa dhacdaa oo shaqo ku jiro shaqadaada ku jiro oo howlgaleed ku jiro warbixin qaadaa in lagu amaado oo dawladda intay ku amaato ama ruux oo hay'adaha oo u xilsaaran amniga intay ku amaadaan qalabkii aad ku shaqeynaysa ay ka qaataan taasoo kale ma kugu dhacdo ma ku qabsatay inta ka hor taasoo kale taas waa iska fudud iska sahlan waaye maxaa yeelay anaga doonshan jino waa dalkeena wala iska saafi ah oo inta baan qalaasi iyo dhibaato ay dhicin qalabkii dil laga soo qaado ayaga ma cunayaan masquulna ku ridaan ma sharci baa jira stationka keenan stationka oo insa waxa la qalab laga soo qaaday waxaan ku shaqeysanayay waxa iska leeyahay warbaahinta iska leh anana gacanta ku hayay marka waxa danta ku qabsatay ayaga inay su'aalo yar ku weydiiyaan tusaale kale maxaa meesha ka haysay maxaa sameeynayay yaa ku yeertay marka su'aalaha waa su'aal iska food waa ugu jawaabaysaa waxay ku dhan aqoonsiga waxa ku shaqeynaysaa keen ama cadaantada keen waxa ku shaqeynaysaa kadib qof walba kaar buu leeyahay baaj buu leeyahay bajal soo bixisa marka waxa qalabka lagu sinaa sidana ku dhamaanaysaa ma ku qabsatay inta ka hor inay is qabataan idaacadda oo shaqeynaysid agaasimaheedo ama ruux idaacadda kamid agaasimaheedo inta badan barnaamijyada noocaas ama khilaafaadka noocaas lagu xaliyo way dhacdaa tusaale kale inta badan laakiin waxa ka dhacda dadka markay hal meel wada joogaan ana hadda intaan joogaa qof baa ku soo idaacadda joogo war ku jiro kale ama barnaamij jiro inuu galo aduu ku soo wuxuu ku leeyahay heblow waxa u baanahay maanta barnaamij ku jira codna soo baanahay marka dadka xuquuqda qofka inaa dhadniyo cod kuma hayay danayso oo meel u turayso maxaa yeelay adiga qofka adiga muhiimada waxa waay inaa war dirtid ma adaa war dirsanaysaa ma qofka sabraan u shaqeynaysaa marka dadka waxa leedahay niyo aniga waxba kuma awoodi ama waxba kuma hayay waxa ay raaso ma doorto uraaso ama dadka kale barnaamij kale iska daa qofkii asaga hadii meeshu ku cusub ama duusan reer magaalahan manager ku waca ninkaas uu yahay soo marka manager marka waxa laga rabaa inuu dhaha qofkaas waxa ka qaldan tahay qofka in la sii qaladkiisa haduu qaldan yahay ama haduu saxan yahay Soomaaliya inta badan qaladka beenta Soomaaliya inta badan ma ogola runta way ka cararaan anaga inta badan runta ka hadalna runta sheegnaa tusaale kale hadii aan qof fadhiyo soo u dhaha barnaamijka soo asan inaan gala birri waxa u baahanahay muuqaal noocaas ama cod noocaas u baahanahay isoo dir qasama inaan u diro go'aankana iska hadaan rabo waxaan dhigi karaa ku soo diro hadaan rabo waxaan dhigi karaa ku soo diri laakiin waxa laga fiican yahay inaad dhado ku soo diraa hadana qofkii aad neeyo ku soo diri kari qofka iska marka aad ku raayso dir waa inaad go'aan degdeg qaadataa aad ku soo diraa ama ku soo diray waxa dhigi kartaa marka qofkii inaad ka mashquusho waa inaad wargelisaa saacad ka hor ama 2 saac ka hor walaal macna waxaan isku weyn waa mashquule arrinta ayada ay ma soo wargelin marka iga raali noqo qofkii uu ku qanacay laakiin barnaamijka 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo qofkii uu ku soo wacay adina waxba gacan ku hayn aad waxba ku soo diri qofkaas waa xarsh uu ku qaadaa guntiga gabadhii aan ku jirnaa su'aasha ugu dambaysan ku weydiinayaa waxa furtay YouTube oo magacaada ku isticmaalayso waxyaalaha barnaamijka aad tawsiid ama idaacadaha u tawsiid ma soo dhigtaa YouTube inta badan waxaan soo dhawr bixinada bani'aadamada iyo sidoo kale waxyaabihii aan arko aan isleeyahay bulshada wax soo saar bay u leeyihiin ama muhiim ay u yihiin ayaan barihii aan soo dhigay YouTube-kayga qaarna YouTube-kayga kala socdaan oo wixii aan soo dhigay way soo dhiirigeliyaan comment ay soo qoraan qaarna way aflagaadi iyo waxyaabo aan loo baahnayn ay soo dhigaan tusaale kale laba bil ka hor suuqa dhagax la gubtay dad badan baa Facebook ka soo waceen suuqii muuqaalada soo baanahay intaan kali karnaa marka waxa u diraa link Facebook marka soo saartay YouTube wuxuu ku diraa link aan u diraa dadkii ma sheegayaan marka waxay leeyihiin ma sha Allah wa subhanallah dadkii qaarna waxay leeyihiin shaqo wanaagsan baa qabatay suuqeedii muuqaalada ka haysid maalmo kadib dadkii wala soo xirin waxay leeyihiin suuq maxaa ka cusub xaqu halkiis maraya gormaal dhisiraa ugu dambeyntii suuqana alla say alxamdulillah ka dad badan oo dhalinyar badan horna ku weydiisay soo kugu soo celin dhalinyar badan waxa jira niidilin oo moraalkoodu hoos yahay oo marka fiirsaday ay isbah dileen oo isleeyihiin waa lagu dhaamaa ama waa laga yahay kale
ilaan ruuxii hadduu wax barta shaqadiina u haynin oo duruufaadkan ay iska jiraan budget crisis waqti oo qaxootiga ka jiro guryaha maanta ku sugan oo qaarkooda ku biireen inay noqdaan dadka darooga isticmaala qaadka iyo waxyaalaha loo joogo balod ay bartaan corona dadkaas oo kale maxaa ku dhiirigelinta ama boorinta u dirlaad maxay dadkaas ayaga ah ani waxaan aqaanaa dad badan oo dhowr mar waxaan u sheegay qofka mar hadduu balotadu bartana horta inuu wax galo waa waxba ka sugin waduu ku arko waxba iidib haddii aad dhaniyo saan wada fiican ma ahan wadadan ka har saan waay meeshan wuxuu ku leeyahay haywayna dhib ma Soomaaliya anaga markaan nahay hayway dhib ma ahan wax iska fudud waraa waxaan iska daa waxaan ka har wax wanaagsan ma ahan wax xun waay wuxuu ku leeyahay hayway su'aashu uu ku weydiinaa jawaab uu bixina waxa hayway waan iska daana laba maalin kadib baashi meesha sukada waxa isku artay magaalada wuxuu ku leeyahay dhib qofkiina waa qof jaamici oo cilmi u leeyahay aqoon u leeyahay waxa dara uu shaqaysto meesha leer uu shaqaysto wuxuu leeyahay waxa u baanahay dhib marka waxaan baaq u diri lahaa in ay shaqaystaan oo wax ay qabsadaan xitaa haddii waxba aysan haynin ku shaqaysan aysan haynin qofka diriskiisa qof walba wuxuu leeyahay mooto ama tuk ama bajaaj ama gaari waxsama aaltuin ama miiraha kale inay ku shaqaystaan waa laba maalmo baa lubsana kadib wala saddex daro la tahay oo ku shaqaysanaysaa marka waxaan baaq u diri lahaa dhalinyarada inay shaqaystaan ay baladaha wax xunka ay ku dhaqmayaan iska daayaan taas waxay ahayd guntii gabagabadii barnaamijkii aan kaga hadlay xasan kaafi noloshiisii iyo waxbarashadiisii iyo shaqadiisii aqoontiisa aan kaga hadlayahayd dhammaan waxaan la hadlayaa ama aan u mahadcelinayaa daawadayaasha oo daawanaya Jimcaale official media iyo sidoo kale Kaafi Media Production waxaan leenahay intaas aan ku soo afmeerinaa barnaamijkii gaarka ah oo doodkan idinkaga imaanayay xiriyaha qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan xirada qaxootiga ee Dhagaxley waxa barnaamijka inoo farsameynay inoo duwayay Faleha Dadaab official intaas iyo inta dambe aan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa kulanti wanaagsan iyo ismaqal dambe